Saaxiibayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada Dhigaal Academy. Dhigaal Academy waa madal u furan bulshaweynta Soomaaliyeed meel waliba oo ay ka joogaan dunida daafaheeda. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan, weji furan, waxaad naga helaysaa cilmi, aqoon iyo in aan kaa dhigno trader madax bannaan, aqoon leh, isku kalsoon, si madax bannaanna suuqan uga ganacsada. Waxaa jiro group channel ah oo ay ku jiraan in ku dhow 1000 arday oo ka tirsan bulshaweynta Soomaaliyeed. Waxaa kale oo aan soo wadnaa toddobaadka soo socdo soona geli doona hawada website si free ah aad uga daawan karto ugana daalacan karto cashirada min bilow ilaa dhammaad. Waxaana kuu soo gudbin doonaa siraha aad u baahnayd oo aad ku tahmaysay in aad hesho. Qof walibana waxaan rajaynaynaa in uu ka daawoobi doono wixii uu u baahnaa oo sira ah oo suuqan ku saabsan. Mar waliba waxaan soo bandhignaa wixii ka qaldan bulshada oo ay suuqan ka rabaan. Sidaas darteed waxaad maanta naga soo codsateen oo aan soo gudbinaynaa sababta ay CAT JBY u aaday buy. Dhigaal Academy la yaab ma aha impulsive dhacay haddii uu dhaliyo volatility iyo haddii uu caadi u baxo liquidity-ga saamaynta dadka suuqa ku jiro ay ku yeeshaanba. Annagu waxaan ognahay impulsive ma dhaco ilaa sababta uu ku dhacay ayaan ognahay. Waxaan kula wadaagayaa anigoonan hadalka kuugu badinin cilmigii iyo aqoontii CAT JBY ay ku aaday buy, sababta selka looga raadinayo iyo sababta buyda looga raadinayo. Sidoo kale haddii aad daawatay cashirkii ahaa sideen ku ogaadaa waxa dhici doona oo ahaa possibility-ga iyo probability-ga aan uga hadalnay, asagana waxaad u baahan tahay in aad dhuuxdo oo aad daawato haddii aadan hore usoo daawan. Sidaas darteed waxaan halkan ku arki doonaa possibility-ga iyo probability-ga lacagtu ay leedahay. Probability-ga waa meesha ugu wanaagsan ee suuqa uu aadi doono iyo meesha uu suuqa markaas 90% u jihaysanayo. Possibility-gana waxay tahay waxa macquulka ah ee markaas suuqa ka suuroobo. Mar walibana waxaan raadinaa message in uu suuqan siiyo jihada uu aadayo intaanan gelin ka hor. Sidaas darteed waxaan kula analyze garaynayaa kulana falanqeynayaa CAT JBY jihada ay ku socoto, halka ay tegi doonto iyo qaabka ay buydan aad arkayso ee laga yaabo in aad ku jahwareertay sababta ay u dhacday ayaan kula wadaagay. Saaxiibayaal kusoo dhawaada dhammaantiin, waxaan guda galaynaa falanqeynteena. Haddii aan tagno weekly-ga oo aan high time frame-ka kasoo bilowno, waxaan arkaynaa in high time frame-ka in uu yahay inaan halkan haddii aan trade lane-keena saarno inaan haysano 3 taabasho oo hoose. Sidoo kale waxaan aragnaa halkan inaan haysano 1 2 3. Sidaas darteed meeshaan anagu waxaan ognahay channelkan samaysmay hadda in uu yahay descending channel. Waxa aan fiirinayno kale oo aan halkan ka eegayno ayaa ayadana waxay tahay lowgeenan in aan right lane-ka saarno. Mar waliba right lane-ka iyo trade lane-ka anagu waxay nagu yihiin wax suuqan nagu hago oo na tuso jihada markaas suuqa iyo cabir aan u isticmaalno ayay nagu yihiin. Sidaas darteed waxaan arkaynaa 1 2 3 inaan haysano right lane-keena sidoo kale in la jebiyey oo double bottom-keenaas in uu qaab weekly ah 2 mar usoo taabtay ayaan arkaynaa. Mar waliba waxaan dhahnaa marka uu price ku jebiyo sug in uu yimaado. Haddii double top la jebiyo ama double bottom la jebiyo ama trade lane la jebiyo oo impulsive lagu jebiyo, mar waliba waxaan sugnaa retrace-ka ayaan sugnaa. Haddii double bottom sidan oo kale impulsive loo jebiyana isagana retrace-ka ayaan sugnaa oo flag ayaan qaadanaa. Taa waa istiraatiijiyadda iyo waxa ay ku dhaqanto Dhigaal Academy. Sidoo kale waxaan arkaynaa halkan in mini double bottom oo kaleeto uu ka samaystay large-gii hore ee right lane-ka meeshaan kusoo qabtay kutumiyana madoobay oo ah asagana large double bottom inaan haysanay with mini double bottom inaan haysano. Sidoo kaleeto halkan inuu price-ka ku xirmay kadibna inuu retrace-ka baxay, halkan inuu flag yahay, halkan sidoo kale inuu entry yahay, halkan sidoo kale in uu flag ka samaysmay. Sidoo kale meeshaan maxay ahayd waxa aad halkan oo kale haddii aan right lane-keena saarno kadibna aan jarno suuqa. Waxa meeshaan
ka dhacay maxay yihiin sababta halkan selka looga raadinayo maxay tahay why halkan ayadana aadan buy suuqa inuu aadayo aadan ugu fikri karin meeshan wax kaa qaldan malaha balse possibility-gan aad isticmaashay waa in aad ku dartaa probability-ga oo ah jihada guud oo kaad JPY in ay tahay buy sidaas darteed meeshan haddii aad isticmaashay trade lane-kaaga oo 1 2 3 qaab noocaas oo kaleeta oo aad sugayso in la yimaado halkan uu price yimaado intuusan buy placement ka hor halkaana in uu pattern separation ka dhici karo gebi ahaanba journalkan in uu lacagta pricekan inuu ignore garayn karo halkan inuu falaag ka samaysan karo kadibna lacagta jihadeedii guud ee buyda ahayd in ay u bixi karto waa wax ah in aad maanka ku hayso annagu marka Dhigaal Academy haddaan nahay waxaan fiirinaa lacagta laba weji ayaan ka fiirinaa mar waxaan ka fiirinaa possibility-ga ay leedahay oo markaas short term sell-ka ah ama short term buy-ga aan uga faa'iidaysan karno marna waxaan ka fiirinaa probability-ga lacagta ay leedahay iyo jihada saxda ah oo ay lacagtu ku socoto sidaas darteed waxaan ogaanaynaa haddeertaan lacagtu inay ku socoto in aan tagno raylinkeena meesha uu noo saaran yahay oo ah correctivekii descendingka meesha uu ka bilowday sidaas darteed waxaan ka raadinaynaa kaad JPY in ay ilaa iyo halkaas tagto oo movekan buyga ah aad ka faa'iidaysan doonto haddii aadan horay selkaas keliya aad u raadinaysay cilmigaas iyo aqoontaas waa wixii ay ku baxday kaad JPY oo ay ilaa iyo halkaas u tegi doonto saaxiibayaal waxaad linkiga ka heli kartaan oo aad group kusoo biiri lahaydeen youtube-keenna ayaad ka heli kartaan oo meelahana laga soo xiriiro iyo wax waliba waa ay ku qoran yihiin aad iyo aad ayaan idiin salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu